walaalayaal qofka bini'aadamka wuxuu ka koobmaa laba qaybood. Qayb waa jirkan caadiga ah oo qalfoofta ah oo gacmaha leh oo madaxa leh oo lugaha leh ee maxooga leh ee caadiga ayaan wada naqaano. Qaybta kalena waa qaybta ruuxa ah iyo qofka uu ku shaqeeyo. Waayo qofka haddii naftu ka baxdo asigoon dhaawacna gaarin meelna ka maqnayn ayaa waxaa leeyahay qofkan wuu dhintay hala duugo. Haddii qofkii waa dhaawac ma gaarsano, gacan kama maqno, madax kama jabno, luga kama maqno. laakiin waxaa maqan xubinka ugu muhiimsanaay ayaa maqan oo nafta ahay. walaalayaal qaybtan jirka ah waxay ka timid dhulka. min bidaaya abuna aadam waxaa laga sameeyey dhulka, carro amba turaab waa dhacdaba. wuxuu u baahan yahay jirka wax laga sameeyo dhulka. wax kasta qofku hadduu u baahan yahay ee uu qaaja hayso, quraan kasta ku daldasho, wacdi kasta ku akhriso, wax weyn uma tarayso. wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno. qaybtan kaloo ruuxdaana waxay ka timid min allah. waxay u baahan tahay iyadana dikriga ilaahay. alaa bidikri illaah tatmainu lquluub. qofku hadduu qallalo ee qalbigiisu qallalo ee uu dikri ilaahay ka fogaado wax kasta oo la siiyo jidka ilaahay laguma soo hanuuni karo ilaa dikri ilaahay loo akhriya maahane. muga walaalayaal qaybtan jirka ah waa wada naqaanaa oo inta badan hooyadu way ka fikirtaa. cilmaha waxay tiraa alilmuhu saaka jarmaada ma haystaan, adoogu waxbaxaa loo dhiiba alilmaha waxay cunaan wadoon. taasoo wada naqaanaa oo inta badan cunugu hadduu qadaxta waa qaylaa oo si guud ayaa looga wada taxadiraa taas. laakiin middan oo qalbiga ah ee ruuxda ah inta badan lagama taxadiro ilaa in ilaahay u nimceeyo maahan. muga walaalayaal middan caadiga ah oo jirka ah dhib ma laha taas. haddaad cawada qado foogtaad wax cune, haddaad foogta qaado tii ka xogtaa wax cune, qalon ba iska cune, adigu waad ka socohe uun. laakiin midda waatan meesha caado ka lug beelayso. midda ugu daran waxaa waaye qalbiga hadduu kaa dhinto. qofka muuminka ah muslimka ah waxaa waaye qalbigaas ayuu ku nool yahay. qalbiga hadduu dhinto wuxuu noqonaa dhinaca kale ayuu maraa walciyaadu billah. muga walaalayaal aan dadaalno dikriga ilaahay aan qulubta ku xasilino. waxaad maqlayaan beryahan dambo stress aa igu dhacay, kalastarool aa igu dhacay, khalal aa igu dhacay. waxaasoo dhan walaalayaal dikriga ilaahay ayaa kacda. kaniini uma baahnid, dhakhtar kula taliyo cilmu nafsiga ku siiyo uma baahnid. ilaahay wuxuu yiri aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaah tatmainu lquluub. dikriga ilaahay ayaa qalbigu ku xasilaa. muga walaalayaal dikriga ilaahay haddaad akhrisato subxaana allah walxamdu lilaah, haddaad taniga berigeed ka daldasho waxaa waaye shidaa lagaama rabo. afkaan waagu muguu baryo qorraxdu dhacdo minay beedinkeedi leeyahay inta ka dhaxla wixii aad sheegaysi haddaad kala bar dikriga ilaahay ka siiso. nabi maxamed wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalama fa innii atuubu 100 mara yoomiye waxaan ilaahay u tooba keenaa 100 mug. xadiis noocaas oo ah malaynaa. muga walaalayaal 100 mug inaad tiraahdo astaghfirullah waxaan u malaynaa 5 daqiiqo xataa ma dhama malaynaaba. 5 daqiiqo xataa ma dhama. muga walaalayaal aan waqtigayna iyo wax dheefkayna aan gelino dikriga ilaahay insha allahu tacaala.